tijaabadani waxay ku tusi doontaa in maskaxdaada qaybta midig ama bidixi ay maamusho caqligaaga waana qaybta ku hagta. haddii aad faraskan u aragto inuu hore u socdo waxaa tahay shaqsi fikrad badan oo waxyaabaha falanqeeya oo macquul ah, waxaadna tahay shaqsi tirooyinka aad u isticmaala. arrinkana wuxuu caddaynayaa inaad isticmaasho maskaxdaada qaybta bidix. haddii aad u aragto faraskan inuu dibdib amba gadaalgadaal u socdana waxaa tahay qof hal abuur leh oo farshaxan yaqaana, waxaana sidoo kale tahay qof dareemihiisa iyo waxa qalbigiisa ku jira raaca. arrinkana waxaa sababaya maadaama ay maskaxdaada qaybta midig ku maamusho. dadka maskaxdooda midig ka fikiraana waa dad jecel inay ka fikiraan sanduuqa dibaddiisa. haddaba weedha sanduuqa dibaddiisa waxaa laga wadaa inaad tahay shaqsi jecel inuu u fikiro si ka duwan dadka kale oo dhan, waxaadna jeceshahay inaad la timaado fikrada aan hore loo samaynin. laakiin haddii aad faraskan u aragto inuu marna hore u socdo marna gadaal, waxaad ka mid tahay dadka leh high IQ level, taasoo ka dhigan inaad tahay shaqsi aad u caqli badan. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo sidee ayaad u aragtaa faraskani inuu u socdo, qaybta commentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebook-ga profileka saaranna aad subscribe dhahdo.